15 bishan February ee 2019 waxaa bulshada Soomaalida soo gaaray war aan la sii filayn oo ah in dawladda Kenya ay u yeeratay safiirkeedii Muqdisho fadhiyay safiirkii Soomaaliya ee Nairobi lagu amray inuu degdeg dalka uga baxo arintaas oo si weyn uga caraysisay dadka Soomaalida caradaas xadraafka ah ee ay Soomaalidu ka muujiyeen go'aanka Kenya ayaa u muuqata utun iyo uur ku taalo hore oo haba tabar yaraatay ka tirmi weyday qulubta Soomaalida ee bal aan maskaxdeena dib u cesho konton sano fadaadunka dadka loo abuuray soo yihiin nafti ayaale ilaaha kusiyo nafti ayaale ilaaha kusiyo nafti ayaale waayuhu isu eka oo haddana kala bedelana dawladuhu waa Kenya iyo Soomaaliya waxa dhex yaala muran dhanka xuduudda sanadkuse waa 1960 sanadkii 1960 bulshada Soomaalida ee gobolka NFD haatan loo yaqaan waqooyi bari Kenya ayaa ku gacan sayray inay ka qayb galaan doorasho ka dhacaysay dalka Kenya diidmadaas oo ay ku muujinayeen inaysan Kenyaati ahayn ee ay Soomaali yihiin isla sanadkii kaas xigay ee 1960 dawladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhiday waxa ay wafdi u dirtay magaalada London halkaas oo uu ka dhacay shir ku saabsan sidii dawladda Ingiriisku ay madax banaani u siin lahayd dalka Kenya balse dawladda Soomaalida ee xilligaas iyo hogaamiyayaashii gobolka NFD labaduba waxa ay doonayeen in madax banaanida Kenya ka hor gobolka Soomaalida loo sameeyo maamul u gooni ah si ay ugu biiraan Soomaaliya waxayna wafdiga Soomaalidu London kala soo laabteen war farxad leh sida uu sheegayo Axmed Ogle oo kamid ahaa hogaankii gobolka NFD ee xilligaas oo u waramay idaacadda BBC sida haatee fursad bay heleen ragga ayaga in ay la kulmaan wasiirul mustacmaraadka iyo dad dawladda ka tirsan Ingiriiska nin Reginald Morling la yiraahdo markaas ay wasiirka isticmaalka yaa ahaa marka waxa la kala qortay oo lagu heshiiyay waxay ahayd wafdi marka Commonwealth ka tirsan in loo diray NFD halkaas oo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka NFD la yiraahdo waxa ay doonayaan waxa marka lagu doodanay ay tahay inay Soomaali raacayaan inay doonayaan inay ka tirsanaadaan wadanka Kenya waxa go'aan oo laga gaaro halkaana ma garanaysaa dawladda Ingiriiska ay ku camal fasho marka wafdiga Soomaalida ayaga faraxsan bay marka wadanka dib ugu soo noqdeen malayni inay guusho meesha ay dhaliyeen haddaba farxadaasi goorma isbedeshay wafdigii waa la soo diray NFD bay yimaadeen lixda magaalo marka la dhihi jiray Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka waqooyi bari ya NFD ya Garissa iyo Mandera iyo Wajeer lixda NFD baa la dhihi jiray way wada mareen reportkooda wuxuu ahaa marka boqolkii 87 inay doonayaan inay Soomaali raacaan marka sidii aan ka loo ogaa dawladda Ingiriiska way una cagadiiday reportkii in ay soo saarto iyo dib ula dhacday wafdi baa marka loo diray London wasaaradda marka qaabilsanayd arrimaha gumeysiga wafdigaas marka kamid ah oo London tagay marka waxay ahdiina siiyeen in uu si degdeg ah dawladda Ingiriiska go'aan ay u gaari doonto go'aankan ay ku gaari doonaan shir ayaga dawladda Soomaalida ka dhaxdhacayo oo magaalada Rome lagu qaban doono waxa dhacday isla inta haddana in mar kale dawladda Ingiriiska ay isbedeshay balse sanadkii 1963 ayaa wasiirkii isticmaalka ee dawladda Ingiriisku waxa uu ku dhawaaqay in gobolka NFD uu ka tirsan yahay dalka Kenya taasina waxay keentay in dawladda Muqdisho ay xiriirka u jarto wadanka Britain halkaasna waxa ay Soomaaliya ku weyday 1.5 milyan oo giniga sterlinka ah oo dawladda Ingiriisku ay mucaawin ahaan u siin jirtay halka dawladda Ingiriiskuna ay ku weyday taawaradii BBC-da ee barbara yaalay iyo diyaaradaheedii isticmaali jiray hawada Soomaaliya 4 sano kadib sanadkii 1967 waxaa Soomaaliya ra'iisul wasaare ka noqday Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waxaana uu bishii July ee isla sanadkaas raadiyo Muqdisho u sheegay mowqifka xukuumaddiisa ee ku wajahan dalka maqan dalkii maqnaa arrinkiisii waxa leeyahay dastuurkiinu sida uu qorayo wuxuu leeyahay dalkii Soomaaliyeed ee maqnaa in la doonaa weeye sifa silmiya oo nabadgelyo leh in lagu doonaa weeye ilaa maanta dawladda Soomaaliyeed 7 sanadood ay dhisnayd nabadgelyadaas ay daba haysay oo ay ku doonaysay dalkii Soomaaliyeed bal maanta annagu waxaan isku daynaa inaan annaga oo tii wadayna
oo raadkii uun haynayna waxaan isku dayaynaa bal sifa diblomaasiya in dadkan aynu maanta maxay haydeen nahay jaarkan nahay hareeraha inaga xiga in haddii walaalnimo wax laga heli karo iyo wanaag wax laga qaban karo in lagaga doono ilaa intii lagaga quusanayo 2 sano kadib sanadkii 1969 waxaa dalka Afgambi ku qabsaday ciidankii xoogga dalka waxaa hogaaminayay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre oo 1970kii shir jaraa'id ka sheegay dalalka Soomaaliyeed oo maqan horay baanu u sheegnay in ay ilaa aanu doonayno inay ku soo biiraan dalkii hooyo taas waxay la wax qarsoon maaha damaaciga Kenya ee hadda taagan waxa uu soo shacbaxay sanadkii 2005 waxayna dawladda Kenya damaceeda u gudbisay madaxweynihii ugu horeeyay ee dawladda federaalka ee hadda jirta waxaana sidaas raadiyo daljir u sheegay danjire ciid bedel oo xilligaas ahaa danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abdullahi Yusuf oo madaxweynaha lagu doortay dalka Kenya ayay Kenya fariin soo dirtay niman siyaasiyiin oo dawladda ka tirsan bay soo dhiibtay waxay tiri waxaan rabnaa baddi Soomaaliya aan wada hadal ka galno waayo shidaalkii waan rabnaa inaan ka qodano baddaasna waa bad aan anagu leenahay marka waxaan rabnaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Cali Geedi arrintaa in la gaarsiiyo nimankii waxay u yimaadeen 2 nin bay ahaayeen waxay warbixintii u keeneen madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf Allah ha u naxariiste madaxweynaha intuu la yaabo uu ku qoslay nin raga oo wax diida waxna ogolaado ahaay war maxay dawladda Kenya fadhinaay dal lama hayno maxaynu bad ka hadalnaa waxa qof weyn oo madaxweyne dal loo keeni kara maahe arrintaas la noqdo oo u sheegay waxaan ku tawaada waxaan haynaa wadilaa maxaan bad ka hadalnaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf arrintii halkaas ku xiray waayuhu suuqa oo haddana kala bedelana dawladuhu waa Kenya iyo Soomaaliya muranku waa dhanka xuduudda balse 50 sano ka hor xuduudda la isku haysto waxay ahayd 6 magaalo marka la dhihi jiray Marsabit iyo Siolo iyo Moyalo oo laga gooyay hadda gobolka Waqooyi Bari ya NFD ya Garissa iyo Mandera iyo Wajeer 6 NFD baa la dhihi jiray maanta oo ah 2019 xuduudda la isku haysto waxa ay tahay xuduudda ka hadlayso waa xuduudaheeni iyo badeeni Ras Kamboni iyo Kenya ku dhaweyd weey Jubaland ka tirsan NFD oo dhan walaba hadlay NFD Kenya waxa ay tahay hadda dhulkeedii tahay adduunka dadka loo abuuray way soo yihiin NFD ayaa leh ummada adduunka dadka loo abuuray way soo yihiin NFD ayaa leh ilaaha ku siiyo NFD ayaa leh ilaaha ku siiyo NFD ayaa leh annaka joogno orgama I